kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. qodobada barnaamijkan idinkugu hayo isla markaana aad uga bogan doontaan daqiiqadaha inagu soo aadan haddii Allah idmo waxaa kamid ah xukuumadda Kenya oo si lama filaan ah ammaan ugu jeedisay madaxweyne Farmaajo si weyn ula dhacday hab hogaamintii madaxweynaha ee 4 sano ee la soo dhaafay. haddaba muxuu yahay isbedelka Kenya xilli uu jiro khilaaf weli ka dhex jira xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi? Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo wada qorasho halis ku ah jiritaanka golaha midowga musharaxiinta iyo xog laga helay abaabul ay wadaan Villa Soomaaliya oo xildhibaan ka dhigaysa Generaal Indhacade si ay ugu dhabarjibiso mucaaradka iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Roble oo sir badan qarxiyay. qodobadaas iyo kuwa kale oo intaas ka faahfaahsan ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu hayaa. fadlan haddii aad inagu cusub tahay daawada subscribe taniga 11 gambaleel kana taabo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino. waad ku mahadsantihiin sida markasta aad inoola socotaan iyo daawashada wararkee aynu ku bilowno wararkeena. aan ku hormaro daawadayaal xukuumadda Kenya ayaa si lama filaan ah waxay u taageertay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyada oo ammaan u jeedisay hogaaminta madaxweynaha Soomaaliya. Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka Kenya sidoo kale tana soo noqday gudoomiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka Kenya ayaa wuxuu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ku amaanan yahay sida uu u hogaamiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya uu ka dhigay dowlad si rasmi ah u madax banaan isla markaana ka madax banaan faragelino kaga yimaada dowladaha caalamka. waxa uu yiri waa uu ku amaanan yahay madaxweyne Farmaajo in 4 sano ee uu xafiis ka joogay in si ka baxsan faragelin dowlado shisheeye ah uu u maamulayay dowladda Soomaaliya. waa arin runtii qab weyn u ah guud ahaan Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya. Mr. Ducaale ayaa wuxuu khudbad ka jeedinayay isla mar ahaantaana hadalkaasi uu ka sheegay shirka sanadlaha ah ee macadka Heritage kaasi oo lagu qabtay markii afaraad dowladda Djibouti dalkeeda. waxaana uu sidoo kale ka hadlay Aadan Barre Ducaale xaaladda Soomaaliya iyo siyaasadda. inkasta oo xildhibaan Aadan Ducaale uu horumarka Soomaaliya ku ammaanay 20 sano ee la soo dhaafay ayuu haddana sheegay in ay jiraan xoogaa qaladaad ah oo mararka qaarkood dhaca. madasha uu khudbadda ka jeedinayay ayaa waxaa Aadan Ducaale kula sugnaa madax kala duwan oo Soomaali ah sida wasiir ka socday dowladda Soomaaliya. waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa madax ka socotay Djibouti iyo sidoo kale madax ka socotay Soomaali galbeed iyo xubno kale oo shirkaasi lagu casuumay. Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya aysan waxba isdhaamin marka la fiiriyo jiritaanka iyo sida labada dowladood ay yihiin kuwo markaasi wada jira isla mar ahaantaana ka caagan faragelin. arintan ayaa dhowr jir oo hore loogu amaanay madaxweyne Farmaajo. sidoo kale waxa uu Aadan Barre ku amaanay madaxweynaha dowladda Soomaaliya in uu dhisay ciidamo markaasi tayo leh kuwaasi oo difaacan kara dalkooda sida uu hadalka u dhigay afhayeenkii hore ee baarlamaanka dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi Kenya. Aadan Barre Ducaale ayaa lagu xasuustaa in markii ay dhaceysay doorashada Jubbaland oo Axmed Madoobe dib loogu dooranayay inuu ka qayb galay doorashadaasi caleemasaarka siiba Axmed Madoobe xilligaasi oo uu si gaar ah u duray madaxweyne Farmaajo. hase ahaatee iminka ayaa waxay u muuqataa hadalkan Aadan Barre ka soo baxay inuu yahay mid markaasi banaanka soo dhigayso sida dowladda waddanka Kenya ay markaasi ula dhacsan tahay ama ay u aqoonsan tahay shaqooyinka uu madaxweynaha qabtay gaar ahaan marka laga hadlayo faragelinta. dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo ayaa hore ugu eedeeyay dowladda waddanka Kenya inay faragelin ku hayso Soomaaliya taasi oo horseeday in xiriirka loo jaro xukuumadda Nairobi. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaad la socotaan. qodobada kale ee wararkeena ayaan fiirinayaa. waxaa xoga laga helayaa in abaabul ay wadaan Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee dalka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed. arrinkan ayaana waxay tahay mid halis ku ah midowga musharaxiinta. golaha midowga musharaxiinta oo hore u qaadacay doorashada kadib markii la baalmaray dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta waa sidii iyagu ay sheegeen ay 12kii bishii tobnaad soo bandhigeen sida lagu sixi karo
habraaca doorashada waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada, balse ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble iyo hogaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa dhagaha ka fureystay baaqyada kasoo baxay golaha mucaaradka, waxayna go-aansadeen in sidii horeeto ee doorashada kusii socoto. sida ay xaqiijiyeen ilo muhiim ah iyo xubno muhiim ah oo markaasi miisaan culus ku dhexlay musharaxiinta madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre ayaa ka hor yimid tallaabada uu mucaaradku ku doonayo inuu caasimada uga qabto shir waxgalka bulshada ay isugu imaanayaan. ra-iisul wasaarihii hore kheyre ayaa dalka ka maqan ku dhawaad 50 cisho, waxaana wax lug ahna kuma lahayn dhammaan war-saxaafadeedyadii dhowaan musharaxiintu ay soo saareen, wuxuuna qaraaco xoogan ka muujiyey 5tii kursi ee lagu boobay dhuusamareeb, wuxuuna safar ku tegay qatar ka hor inta uusan usii gudbin Norway. madaxweynihii hore sheekh shariif ayaa dhankiisa dalka ka baxay sabtidii, wuxuuna maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga gaabsaday guuxa mucaaradka iyo guud ahaan bulshada caasimada oo ah in dhidabada loo taago golo qaran oo hor istaago boobka doorashada dalka kaga socota, sida mucaaradka ay aaminsan yihiin xasaradaha siyaasadeed ee kusoo food leh. xubnaha kale ayaa sida wararkeena horeba aad kusoo daawateen waxay ku baaqeen shirweyne qaran oo ay isugu imaanayaan ahlu xalli wal caqdiga bulshada Soomaaliyeed, waxayna magacaabeen guddiga qabashada shirweynaha iyo guddiga ammaanka shirweynaha, taasi oo ka dhigan in mucaarad ku kala jabay isla markaana laba garab uu kala noqday. sheekh shariif waxa uu dhammaadkii bishii Febraayo iyo bilowgii bishii Abriil ee sanadkan dhowr kulan oo qarsoodiyaha la qaatay Fahad Yaasiin, laakiin waxba lagama soo helin natiijooyin ku saabsan sida kulankaasi uu noqday. mid ka mid ah la taliyaashii hore ee Niza ayaa sheegay in xilligaasi uu sheekh shariif dacwad ka dhanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur u gudbiyey wakiilada beesha caalamka ee xalano jooga, isaga oo ku eedeeyey in ay yihiin dagaal oogayaal soona jeediyey in loo aqoonsado qaswadayaal. sheekh shariif ayaa la xasuustaa xilligii uu ahaa gudoomiyihii guddiga fulinta golaha maxaakiimta inuu bilowgii 2007 uu isku dhiibay deegaanka Hulugo oo ay ku yaala xadkii ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya, saacado kadibna la geeyay Nairobi, taasi oo lagu tilmaamay khiyaano uu ku sameeyey golihii maxaakiimta. kheyre dhankiisa waa shaqsiga waqtiga ugu badan la soo shaqeeyay farmaajo iyo Fahad, waxaana la rumaysan yahay inaysan jirin kala aragti dubanaan buuran oo u dhaxaysa isaga iyo kooxda qatar taageerta ee madaxtooyada markaasi weli ku sugan. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaad la socotaan, qaybihii dambe ayaan daawanaysaana markana General Indha Cade ayaa markaasi isku soo sharaxay xildhibaan golo shacab, waxaana arrinkan la sheegay in Villa Soomaaliya ay gadaal ka riixayso. Indha Cade ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu u tartamayo baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. General Indha Cade ayaa isku soo taagay kursiga nambarkiisu yahay Hob 138 oo uu hadda ku fadhiyay ganacsade Saciid Nuur Giriis oo aan diyaar u ahayn inuu u tartamo kursigan mar kale. xaflad ka dhacday Muqdisho oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin, ganacsado iyo haween ayuu kaga dhawaaqay go-aankiisa oo ah inuu u tartamo kursiga uu hadda isku soo sharaxay. Indha Cade ayaa waxaa horey markaasi uga soo baxay warar sheegaya in beesha iskale kursigaas ay siisay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah golaha midooda musharaxiinta. Indha Cade ayaa markaasi la sheegaya in hadda Villa Soomaaliya ay iyadoo adeegsanayso inay ku dhabarjiriso mucaaradka maadaama uu yahay nin dhaqdhaqaaq xoog leh ku leh ciidanka, isla markaana abaabuli kara ciidamo fara badan oo isaga daacad u ah. Indha Cade wuxuu ka mid yahay saraakiishii badbaado qaran ee ku horimid muddo kararsigii baarlamaanka ay u sameeyeen madaxweyne farmaajo, taasi oo markii dambe fashil uu ku yimid. waa hagaag qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay aan kusoo gabagabeeyay warbixintan. guddiga xaleynta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxa ay kulan la qaateen safiirka dowladda Ingiriiska ee ugu magacaaban Soomaaliya. danjiraha dowladda Ingiriiska u joogta Soomaaliya Kate Foster ayaa kulan la qaadatay gudoomiye ku-xigeenka guddiga xaleynta khilaafaadka doorashada mudane Maxamed Ibraahim iyo Axmed Yuusuf oo xubin ka ah guddiga. kulanka ayaa lagu lafaguray caqabadaha horyaala doorashada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa daahfurnaanta iyo kalsoonida doorashada. waxaa sidoo kale qodobada aadka loogu dheeraaday ka mid ahaa sida habraacyada cabashooyinka doorashada looga mili lahaa, meertada doorashada, shaacinta odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee xulaya ergada marka la joogo meertada koowaad doorashada dadban 2020-2021.
waxaana hoosta laga xariiqay inay waxtar u tahay hufnaanta doorashadooda, sidoo kale xaqiijinta ergada iyo in cabashadooda la siiyo muddo lagu soo gudbisan karo dacwadaha ayaa loo garowsaday inay muhiim u tahay daahfurnaanta doorashada. intaasi ayaan daawadayaal kusoo afmeeraya barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda waddanka Soomaaliya. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ta naga ilaabin, gambeelkana taabo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinay. nabadi.